بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا جنال كنا لقونا official جنال وأنه مانتي كجور بحين دونه وربحين كوبان صرف كالعجها جيك الصوماليات كأهان مانتي وحن فوكس كسرنا معمول كبتلة رهانتي سيد الله وصعنو أساس كي العجها صرف كالصومالي وكن سجال بقولي لحدا كي بركة لقى صوت مانتي markii la isweydiiyo xagee bay ku dameysaa runaantii waa meel aad u hooseysa waxa maanta mikrofoonka la dhexmaray suuqa weyn ee magaalada Boosaaso haabka ay mareyso sarifka lacagaha Soomaaliga iyo la isku bedelo dollarka iyo qaabka ay uga falceliyaan dadka danyarta ah runaantii hadda waxa la joogaa Maxamed Axmed oo ku magac dheer Qodax oo kamid ah sariflayaasha magaalada Boosaaso waxaan rabaa in ka qaado wareysi yar oo kooban maxamed soo dhaw waa dhawahay runtii waxaan rabaa inaan ka wareysto xaaladda sarifka lacagaha waxa warbixin kooban naga siisaa xaaladda guud ee sarifka lacagaha Soomaalida gaar ahaan Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud kamid ah sariflayaasha Puntland janalka dhego aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa inta kadib sida aad sheegtay horta lacagaha sarifka Puntland marba waxay ahayd qiimo laakiin hadda waxay maraysaa qiimihii abid ugu sareeyay ay gaadho Puntland markii laga soo reebo waqtigii uu madaxweynaha ahaa Cabdi Muuse Allah u naxariistay uu sarifku gaaray yani markii la isbarbar dhigo Soomaaliga iyo dollarka markii laga soo reebo markii xilligii uu madaxweynaha ahaa Cabdi Muuse uu gaaray $100 4 milyan hadda wuxuu marayaa $100 3 milyan iyo 600 aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed marka hore waxa markii laga yimaado dawladii hore dawladda hadda jirta madaxweynaha ka yahay Said Abdullahi Din marka lacagaha laga soo tago waxa jirta imisa ayuu hadda marayaa $100 hadda $100 wuxuu marayaa waa laba gacmood baa la yiraahdaa qabasho iyo bixin gacanta hore wuxuu marayaa 3 milyan iyo 600 3 milyan iyo 600 gacanta dambeena wuxuu marayaa 3 milyan 650 aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed ma jirta cid ka socota dawladda ama dhanka dawladda oo idin kala hadashay ama xadiday lacagaha isku bedelka sarifka dawladdu in badan bay isku dayday inay xadido lacagta in badanna waxay damacday inay qiimo u samayso laakiin maadaama ay jiraan caqabado badan oo dawladdu laftirkeedu aysan boqolkiiba 50 aysan ku qaadin cashuurta dekeda Boosaasood aysan ku qaadin cash ay ku qaado boqolkiiba 70 oo dollar iyo boqolkiiba 30 oo soddonku uu yahay cash sidaa darteed dawladdu ma xadidin mana xadidi karo waqtiga hadda jira waxa leedahay xarumihii dawladda iyo dekedihii iyo macshirkii airportkii kulli waxa lagu qaadayaa dollar dollar baa lagu qaadaa kulli aad u mahadsan tahay Maxamed waxa ka warantaa danyarta qaab noocee ah ay caqabad ugu tahay lacagahaas danyarta runtii waxay ugu tahay aad iyo aad u xoog badan baa danyarta haysata maxaa yeelay danyartu waxay qaataan shilin Soomaali waxayna ku shaqeeyaan waa shilin Soomaaliga tusaale ahaan ninku markuu maanta uu ka soo xamaasho dekeda ama raashin soo dejiyo ama wax kale ha dejiyo ama xoolaha harare waxa la soo siiyaa oo ay soo siiyaan ganacsatadu shilin Soomaali shilin Soomaaliga markuu uu kula noqdo gurigiisii waxa uu qaban mayso maxaa yeelay markuu rabo wax ku gato oo dhar uu ku gato qiimaha waxa laga yaabaa in loogu dhufto qiimo aad iyo aad u sareeyo oo uusan xadidi karin oo lagu dhufto 3 milyan iyo 650 mana xadidi karo aad baa u mahadsantahay Maxamed waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا جنال كنا لقونا official جنال oo aanu maanta kaga warbixin doono warbixin kooban shacabkana ayaga ka mas'uul ah oo la weydiinayo akhro sidaa darteed lacagta shilin Soomaaliga ah hadii la rabo inay qiimo yeelato horta wadan kasta wuxuu qiimo ku yeeshaa waa lacagtiisa lacagteen hadii uu qiimo dileena qiimo ma yeelanayno
waxaan horta dowladda marka koowaad ka codsanaya inay shacabka hoos u fiiriso oo shirkadaha iyo ganacsatada kulli doolarka raadinaya inay doolarka ay xadidaan oo shilin Soomaaliga la qaato oo shirkadii wax ku iibsadaan oo ganacsiga lagu gato oo ay dowladda laftirkeedu ay boqolkiiba 50 ay ka dhigto shilin Soomaali sidaas ayay wacnaan lahayd inay dowladdu ula dhaqanto shacabkeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baa u mahadsantahay maxamed aad halkaas